السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كرتون عشان جاود إلى مدرسة الكسر وهذا وركا في نماه شبكة ده وركا شنقلة تيفي ولبضها بيش فبراير لما كل يكوب يلا بطنا قد بدأ وركا داود أنت نادي الله ودلو نوقلادنا وحا غيبك بدحورها دولة قولتك بوتلان سعيد دني أي سفر علينا عدولك كسر قاري مقالة الروس مريبة حرون تمام الكاسي قال المدوقا بدحورها دولة قولتك جبل المدري أحمد محمد إسلام أحمد مدوي وفتي برانو هو قامنا يا كيك وكومان لبضها قولي dowladda Jubbaland ayaa maanta soo gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulkaasi dowlad goboleedka ee Jubbaland labada madaxweynayaal ayaa la filayaa inay ka qayb galayaan shirka madaxda dowladda federaalka iyo sidoo kale madaxda dowladda goboleedyada dalka Soomaaliya oo ka furmi doona maalinta bariya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulkaasi Galmudug madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa caawa hoyga ka digay yahay magaalada Dhuusamareeb oo ka booqasho ugu tagay madaxweynaha Hirshabelle mudane Cali Guudlaawe Xuseen geesta kale waxa uu booqday madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Laftagarana ayuu isla ku booqday hoyga ka digay yahay magaalada Dhuusamareeb waa madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor waxa maalinta bariya la filayo shir rasmi ah oo furmo shirka madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya sidoo kale madaxda xubnaha ka dowladda federaalka ee maamul goboleed dalka Soomaaliya ka jira shirka ayaa si rasmi ah bariyo u furmi doona hadii Allah awood la ogolaado qodobada iyo qodobo kale ayaa dawladda hadii Allah awood la qadaraaqatana ku soo dhawaado warkeedii oo faahfaahsan madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Deni ayaa wafdi ballaaran oo hogaaminaya safar dhinaca dhulka ku soo gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulkaasi Galmudug madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa waxa ay ka soo dhaweeyay magaalada madaxweynaha dowladda Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo xubno kamid ah mas'uuliyiinta Galmudug ayaa halkaas ku soo dhaweeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Deni iyo wafdiga ballaaran oo hogaaminayo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni ayaa safar dhulka kaga soo kacay magaalada Garowe caasimada dowladda Puntland isagoo soo maray magaalooyinka Kalkacyo iyo sidoo kale magaalooyinka ku xeeran gobolka Mudug madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa la filayaa inuu ka qayb galo shirka madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxda xubnaha ka dowladda federaalka ee Soomaaliya oo si rasmi ah uga furmi doona magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulkaasi Galmudug madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madawi wafdi hogaaminaya kana kooban labada gole ee dowladda Jubbaland ayaa maanta soo gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulkaasi dowlad goboleedka Jubbaland madaxweynaha Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo xubno ka tirsan golayaasha baarlamaanka dowladda federaalka ayaa madaxweynaha iyo wafdigiisa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Ugaas Nuur ee magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulkaasi Galmudug madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madawi ayaa ka qayb gali doona shirka watashiga ee qaran ee ka furmaya magaalada Dhuusamareeb kaasi oo ka qayb galayaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kale dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ee Soomaaliya madaxweynaha dowladda Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa caawa hoyga uu ka degan yahay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulkaasi Galmudug booqasho ugu tagay madaxweynaha Hirshabelle mudane Cali Guudlaawe Xuseen madaxweynaha Cali ayaa soo gaaray magaalada Dhuusamareeb shalay si uu uga qayb galo shirka madaxda dowladda federaalka iyo sidoo kale gobolka Banaadir oo si rasmi ah uga furmi doona magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulkaasi Galmudug geesta kale madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa hoy uu ka degan yahay isna geesta kale ku booqday madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Laftagarana madaxweynaha Laftagarana ayaa ka qayb galaya isna madaxda ka qayb galaysa kamid yahay shirka madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya kale madaxda xubnaha ka dowladda federaalka ee Soomaaliya ka furmi doona magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulkaasi Galmudug insha Allah wararkeena dambe ku daawan doontaa shirkaasi marka uu furmo hadii Allah awood la ogolaado inta waxa ku soo gabeynaa wararkeena caawa iyo shabakada wararka Shaqala TV aniga Xuseen Xasan Cabdi warramayay inta warku xubnaha salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh